Jamhuuriyadda Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay xildhibaanada golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye doorashooyinkii golayaasha wakiilada ee dhawaan dalka ka qabsoomay. xildhibaanadaasi oo qaarkood halkaasi ka hadleen ayaa madaxweynaha waxay uga mahadnaqeen casuumadan uu ugu sameeyay qasriga madaxtooyada ee uu ku qaabilay maanta. waxa weeye maalin aan ka soo baxnay hawl culus oo ah tartankii adkaayna soo galnay ee lugeydeen alxamdulillah ilaahay hadduu naga dhigo intii soo guulaysatay maanta halkaas ugu timiday marka ilaahay aan xamdi naqdo inaguna aan waajibaadkii la soo doortay iyo hawshii la noo egmaday aan noqono kuwa insha Allah ka soo bixi doono. runtii gobolka saaxil afar nin baa maamul kaga soo baxnay runtii ninkii ugu horeeyay hadal badan hadalkiisa badan yiri waxa muhiim ah waxa weeyaan inaan dadaalo doorashada ka soo baxnay runtii de hawl badan baa inoo taala hawsha inoo taala ma yara tii hore ee haysay ayaa mid kale ku soo biirtay oo xil badan baa saaran ka xildhibaan ahaan anagu diyaar baan nahay wixii hawla aad iyo aad u mahadsantihiin aadna waan madaxweynaha waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne waxaan u noqonaynaa saldhig xisbiga baan u noqonaynaa xildhibaanada iyadan oo dhani intact baan ahaanaynaa xildhibaano isku xiran baan ahaanaynaa xildhibaano difaaca barnaamijka xisbiga iyo barnaamijka dawladda haddii ilaahay yiraahdo baan ahaanaynaa inaanu dhownahay waa ku mahadsantahay martiqaadka sagalba furan oo shaqaalaha iyo cid kasta khusayso ayaa nooga soo dhaweeyay waa ku faraxsanahay waa ka mahadcelinaynaa. sidoo kalena halkaasi waxaa ka hadlay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed iyo waliba wasiirka wasaaradda qorsheynta Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo iyaguna halkaasi ka hadlay doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo sida ay u qabsoomeen. waxaan marka ugu horeysa fulinay waajibaadka qaran ee nasaaraa marlabaadkii xildhibaanada xisbigeena iyo xukuumadda soo baxay xildhibaanada oo soo baxay waa hambalyeeyaa waana mahad celinayaa ilaahay waxaan uga baryayaa kii dalka iyo dadka anfacay inay noqdaan. waxaa guul ah in xisbigii xisbul xaakimka ayna ka soo baxdeen waxaan madaxweynaha halkan yeelantooda ka xusayaa xildhibaanadii musharaxiinta ay ka socday kulmiye intii aan ku guulaysan iyo waqtigooda waan hambalyeynaa dagaalkii la yimaadeen marna waxaan ugu ducaynayaa waxaa loo doortay xil adag if iyo aakhira mid la isweydiinayo ilaahay subxaanahu watacaala hadin fududeeyo guddigan baa naga fududeeyay. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa xildhibaanada cusub u hambalyeeyay. iskii magacyada waan u soo gudbinay madaxweynaha idinkuladda madaxweynaha waa wada garanayseen waxa ay idin maanta inaynu halkan madaxtooyada isugu nimaadno. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhinaciisa isna la dardaarmay xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ku matali doona xisbiga kulmiye. aad iyo aad baan qoydi soo dhaweynayaa waana idin ducaynayo saa la sheegay in ilaahay xilka maalin xilka qaadaa xil culus baad oo muddo dheer rag saaxiibadii ku soo fadhiyeen oo isbedel gelin lagu taanayay oo maanta dhacay bishan insha Allah yaad qaadeen runtii. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu madaxweyne ahaan dhisayo ayna ka go'an tahay inuu xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri maanta waa kuna ka horreeyay waa ognahay waa ogahay inaan wax badan ka buuxo oo mustaqbal ku saabsan oo dhibaatada soo martay ku saabsan oo imika la fiina u saabsan oo doorsaana ka hadasha anigu waxaan dhisayaa Yaasiin professorka iska dhaaf macallinimadii iska dhaaf markii afweerada dagaalamaya isagoo professor shaqada laga yeelay oo maqaaxiya furtay oo fuka candiidka ahaa iska dhaaf waxa soo dhan 1990kii shirkii ugu horreeyay ee nabad lagu dooro garaad Cabdulqani iyo isaga iyo ninkii loo jiray Fagare iyo rag iyo odayga Sakhraar ina cali caad adeer dad baa jira ahal badan oo maalinta adkay dalka wax ka qabtay
barasaabkii ugu horreeya 91 iyada oo dee qori wadsta ninkii ka hortagay waa nabadii ka soo bilo 7 shilin bar laga qabto ninkii ku jiray og baa laga bilaabay reeraha laga heshiisay 7 maray shirkii berbera kii burco kii dawladdii ugu horreysay waxaa la leeyahay dagaal socdo tii cigaal bal hadda eeg intaasoo caafimaad darre iyo dagaal iyo Soomaaliya taariikhdaas ku leeyahay nasiibna uu ku leeyahay maalintii aan forinka u dhiibay dee intii uu joogay wixii khayr soo kordhay waa ogtay abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus